bishii 7/2023 waxaanu ku sugannahay xeerarada tababarka ciidamada ee loogu magacaabo Xasan Qalas oo ah ninka qalasku ay ku soo baxday magaalada Laascaanood oo ku shahiiday 18 May magaalada la yiraahdo Laascaanood dugsi waxaa loo furayaa maanta guuto ka tirsan ciidamada daraawiishta ee SSC Khaatumo oo ka qayb noqon doona ciidanka maamulka Khaatumo ee difaaca iyo xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sida daraadeed beesha reer cigaana leeyo oo guutadan magaceeda waxa la yiraahdaa Xirsi Cartan Boos waa baanduulihii labaad ee daraawiisheed guutadii hore ka soo baxday magaalada Buuhoodle guutada waxa loo jiray Ismaaciil Mire hogaamiyihii koowaad buu ahaa abaandulihii labaad ee daraawisheedna wuxuu ahaa Xirsi Cartan Boos Ilaahay naxariis jannaha siiyo waxa loogu magac daray guutada sida daraadeed maanta tababarka loo furayo ciidamadan waxa ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo arrimaha laba qodob ay beesha isla qaadatay toddobaad kadib markii la lafaguray dhinac kasta la eegay dufcadani waa dufcadii saddexaad loogu talagalay inay ka xoreyso Sool Sanaag iyo Cayn argagixisada SNM oo ay maleeshiyaadka Muuse Bixi soo khalday ay midho soo qaban lahaayeen hadii la haydno insha Allah taala waa soo qaban doonaan waxa loogu labada qodob ee isla qaatay beeshu waxa weeyaan marka koowaad midnimada beesha in la ilaaliyo lana sii xoojiyo qodobka labaadna waxay isla qaateen in la dardar geliyo oo la sii saddex jibaaro ama la sii shan jibaaro taakulaynta haddii ay tahay xagga militariga dhaqaalaha saanada xoreynta gobolka Sool Sanaag iyo Cayn sidii looga xoreyn lahaa argagixisada SNM marka waa qayb kamida ciidamadii ka saari lahaa ka xoreyn lahaa maleeshiyaadka SNM ciidan markaliya balse wuxuu noqon doonaa ciidan soconaya insha Allah intii Ilaahay gaarsiiyo hawshiisu inta waxa raacsan beesha raacigaana la yeeshir balaaran ay ku jirtay ay kaga tashatay horumarkeeda waxa weeye iyo wixii ay ku horumarin lahayd arrimaha gudaheeda waxa beesha raacigaana la insha Allah u go'aan u soo baxay inta SNM ay ku jirto deegaanka SSC habeen iyo maalin inaysan halgankan ka seexan ciidankan kana ma noqon doono oo kaliya mid labaad iyo mid saddexaadba waa noo soconaysa beesha go'aankeedu wuxuu yahay SNM shakhsi kamid inta uu ku jiro dhulka SSC inaanu halgan ka wadno hawsha ku jirno hadalkii garaad jaamac yiri salaadii la galay macnaha wali maanu maqal meel salaada xitaa in taxiyaad la maraya dhexe xitaa war ma hayno laakiin illa garaadku yiraahdo salaam naqsiga la gaaro inay hawshani socon doonto hadii Ilaahay idmo gala dagaalka ahayd haddana maxaan ku raahdaa ay marayso meel fiican waxaan cadeynayaa oo aan halkan ka cadeynayaa salaada sidii garaadku u xiray dagaalka inaan wax xataa weysala'aan uga baxayo shaki aysan ku jirin aynana ku jiri doonin insha Allah biidnillaahi kariim ilaa iyo maxaan ku raahdaa salaam naqsiga ugu dambeeya la gaarana ay ka go'an tahay beeshan iyo goboladan Sool Sanaag iyo Cayn wassalaamu calaykum intii hore baa hadalka yiri intii baan la yiri dugsigan tababarku waxa weeye saddex dugsiyo hore ka baxay kana waxa weeye markii uu ka baxaba waxa noo qorshaysan in mid kale aanu gelino hadii aanu nahay beesha reer cigaana leeye ciidankaas waa ciidan SSC ah waa ciidan dib xoreyna waxa weeye hawshaas waxa weeye juhdi badan iyo hawl badan baanu gelinay insha Allah bilmillahi kariim waxay noqon doonaan kuwa dalkooda iyo dadkooda xoreeya murdiya wadiin warbixintu waa inta la idin sheegay ciidankana waa ciidanka xoreynta gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee beesha cigaana leeye oo tababarka loo furay insha Allah waqti dhow hawlgeli doona biidnillahi kariim warbixintu waa inta hore la sheegay xaraga dagaalankii wali garaad Cabdirasaaq garaad soo sheegay baan ku jiraa anagu ciidiyaha ku dagaalaymayno laakiin wali wax xaraga dagaalan inta waxaan ku darayaa maamulka Muuse Bixi haddii uu isagoo xaqdarro ku dagaalamaya uu ka caajisi waayo dagaal ka caajisi mayno annaga oo dalkayaga iyo dadkayaga difaacayna intaasaan